Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada janaalka Somali Eventis. Hooyadii ayuu uga tagay meel saxara ah si ay u cunaan bahalaha, dhibkeedana oo uga reysto. Waa qiso cajiib ah isla markaana ay ku sugan tahay cibro iyo waana qaadasho. Hooyoy la'aanta waa abaar, joogistaadana waa farxad, jiritaankaaguna waa nolol. La'aanta noloshu dhadhan ma lahan, samafalkaaduna waa cibaado, balse waxaa hoogay oo qasaaray ruuxii ku helaa haddana aan ka faa'iideysan. Jannadana aana kugu kasbanin waa qiso ku saabsan hooyo iyo wiilkeeda. Hooyo iyo wiilkeeda iyo gabar uu qabay ayaa waxay wada deganayeen meel saxara ah. Wiilkani wuxuu hayn jiray hooyadii oo waayeel ah isla markaana xanuunsan. Mararka qaar waxaa dhici jirtay inay miyir daboolmato xanuunka haya awgiis. Mar waliba wiilkani kuma uusan ku faraxsanin la joogista ee la joogto hooyadii, wuxuuna ku fakiri jiray siduu uga takhalusi lahaa isla markaana dunyada ugu raaxaysan lahaa. Maalin ayaa waxaa dhacday sida caadadu ahayd reerka meesha deganaa ay go'aansadeen inay guuraan ayagoo markaana raadinaya biyo iyo meel ay xoolahoodu daajiyaan. Wiilkani wuxuu ku fikiray maadaama la guurayo in hooyadii uga tago saxaraha si ay bahalaha u cunaan ama cid kale ay u qaadato. Markii ay soo guuri rabeen ayuu xaaskiisii ku yidhi beritu waan guuraynaa ee hooyadii waxaad u diyaarisaa raashin, halkan ayaan ugu tegaynaa ma rabna dhibkeeda, noloshaan waa ku raaxaysanaynaa. Gabadhani ayaa waxay ahayd gabar aad u caqli badan, waxayna ku tiri ka jiifo arrintan, aniga ayaa habeynayo. Reerkii way soo guureen, balse gabadhani waxay samaysay wiil yar ee iyada dhashay oo dhowr sano jir ah oo aabahana aad u jeclaa ayaa waxay uga soo tagtay wiilkii yaraa meesha oo ayeeyadiis looga soo tagay oo saxaraha ahayd. Kadib safarkii ayaa la galay, markii dhax la socdo xilli duhur la joogo ayaa la degay. Markaas reerkii waxay galeen nasiino. Aabihii ayaa ku yidhi xaaskiisa aawi wiilkaygii yaraa, waxayna ku tiri waxaan uga soo tagay ayeeyadiis meesha ay joogto. Aabihii ayaa aad u qayliyay, wuxuuna ku yidhi maxaad uga soo tagtay halkaas, waa bahala galeen. Waxay ku tiri xaaskii maxaan ku falaynaa, markuu u weynaado ayuu adigana kaaga soo tagayaa saxaraha sidaad adigana hooyada uga soo tagtay. Aad ayuu uga naxay hadalkii xaaskiisa, waxayna ku noqotay mid naxdin leh. Aabihii faraskii ayuu soo koray, wuxuuna ku soo laabtay meeshii uu hooyadii uga tagay. Wuxuuna yimid meeshii iyadoo bahalo dul heehaabaya, hooyadiina ay cunugii faraqa ku hayso, bahalahana ka celinayso iyadoona dhehayso war ka leexda cunugeygii, wiilkaygii ayaa dhalay, aad ayaan u jecelahay. Marka uu arkay in hooyadii wiilkiisii faraqa ku hayso, bahalahana ka celinayso, ayuu aad u ooyay, wuxuuna bilaabay inuu kala buriyo bahalaha qaarna uu dilo. Kadib hooyadii iyo wiilkiisii ayuu soo waday, wuxuuna keenay meesha ay u socdeen. Hooyadii ayuu wuxuu ka codsaday inay cafiso dib dambana uusan ugu laabanin. Wiilkii hooyadii way cafisay, wuuna ka toobad keenay, wuxuuna noqday mid baari u ah hooyadii. Mar waliba uu safar galayana ayada ayuu ka bilaabi jiray si uu safarkiisii u wanaag. Wiilkani waxaa ku dhici rabtay ayaan daro, balse Allah subxaanahu wa tacaala ayaa badbaadiyay oo fahansiiyay xaqa ay hooyadii ku leedahay. Wiilkani wuxuu noqday mid aad u wanaagsan, baarin u ah hooyadii, mar walbana daryeelo. Qisadan ayaa waxayna tusaysaa inay hooyada cafis badan tahay, naxariis badan tahay, samafalkeeduna oo cibaado yahay, jannana ku gelayso. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan nagu soo biir haddaad nagu cusub tahay oo subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalka dambe aan soo dhigi doono. Mahadsanid.